بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهنتين صاحب يال وحد داون إنسان برامج كهرمركا جبلان تي في تضبط كانوا حاسيتو سيدين كجي معنا يا مجالات بيدبو عاصمة كوميريجار كود دولة جبلات كوفر قلبات وحنا برنامج كمرتين وقعد قدوميها قبل كشبه الله خوسي مدن إبراهيم آذن علي نجح وسفر شقو كويمي مجالات بيدبو عاصمة كوميريجار كود دولة جبلات كوفر قلبات برنامج كقضبات عن ديرة كوساري دونو حكم ده هرمركا لجا جاري gobolka shabeellaha hoose iyo aqabadaha xilligan hortaagan iyo deegaanada uu ku guuleystay gudoomiyaha maamulkiisa iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane gudoomiye ku soo dhawow Jubbaland TV aadan socdaal waxaan salaamayaa markuu ugu horeysay shacabka Soomaaliyeed iyo baahda TV-ga Jubbaland TV xaruntiisa magaalada Baydhabo ka shaqeeya koonfur galbeed Soomaaliya si guud ahaan waxaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada ummadda Soomaaliyeed aad u haysaan aad iyo aad aan u dhawahay waa maasan wayahay mudane gudoomiye daban deegaanadan koonfur galbeed marka laga hadlayo sida magaalada Baydhabo ayaa mid ku tahay ugu horeyn ujeedada Baydhabo ay u timid walaalo Baydhabo waxaan u imaanay casuumaad ay noo fidisay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta ee dawladaha hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo runtii lagu casuumay dhammaan maamulada gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed guud ahaanteeda gobolka Shabeellaha Hoose aniga aan mas'uulka ka ahay waxaa igu weeriyay safarka gudoomiye ku-xigeenada heer gobol iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose halkaana waxaan runtii aan imaanay 5 maalin ka hor waxaan ka qayb galaynay seminar wasaaradda arrimaha gudaha ay ku soo bandhigaysay qaabka ay rabto inay u shaqeeyaan gudoomiyaasha gobolada iyo gudoomiyaasha degmooyinkaba ay ummadda koonfur galbeed ay ugu shaqeyn lahaayeen marka wuxuu ahaa barnaamij wasaaradda ay wadato oo fulinteedana annagana naga rabo markaan ku laabano gobolkii iyo degmooyinkii in siday tahay aan ugu fulino haddii aan lahayn waraysigeena ayaan gudagalaynaa gobolka Shabeellaha Hoose tan markii dib lagu magacaabay waxyaabaha horumarka aad ku soo kordhisay runtii gobolka Shabeellaha Hoose sidiisaba waa gobolada koonfur galbeed hadda ugu weyn ayuu ka mid yahay gobolka ugu wax soo saarka badan ee Soomaaliyana kaalinta koowaad kaga jira caqabado fara badan oo 30 sano ee burburka Soomaaliya haystay ka jiray ayaa gobolka ku habsan waxaa ka mid ah walaalo qabiil waxaa ka mid ah runtii abaaro gobolka soo ah gobol wax soo saar leh webigii leh oo badii leh daaqsinkii leh howl dhaqatada iyo beeraleyda iyo ganacsatada iyo kalluumaysatada intaba uu kulminayo ayaa haddana waxaa ku habsaday abaaro xoog leh oo runtii dad adduunyo intaba ay u dhinteen taasoo waxaa sidaas la mid ah ku habsaday gobolka colaadahan kooxaha argagixisada al-shabaab nabadiidka ah ayaa ku habsaday oo dadkii u diiday inay shaqaystaan dadkii u diiday inay wada noolaadaan dadkii u diiday inay runtii aayahooda iyo mustaqbalkooda ay ka shaqeeyaan markaan hadda gobolka dib ugu laabanay annaga waxaan ka shaqeynay maamul midaysan ayaa dad midayn kara in maamulada degmooyinka iyo maamulada gobolada ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose anigii ku-xigeenadayda ee aan diyaarino ajandaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee xasilinta gobolka Shabeellaha Hoose dhinaca amniga oo runtii ay qayb ka yihiin dib u xoreynta meelaha shabaabku ay haystaan dhinaca shaqo abuurka iyo dhinaca kale caafimaadka iyo waxbarashada intaba ayagoo isla socdaan waxaan helnay runtii madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ayaa arintan hormuudka ahaa oo ka gaday international community partnerska koonfur galbeed ee ku daneeya inay caawiyaan horumarkeeda inay ka shaqeeyaan in gobolka Shabeellaha Hoose ay koonfur galbeed priority xoog leh ay u tahay taas anaga waxay noo sahashay marka in gobolkii aan u helno
mashaariic lagu horumarinayo degmooyinka sidaasa la mid aan dowladda federaalka ee koonfur galbeed inay isla fahmeen qorshe amni oo gobolka dib loogu xoreynayo maamulo wanaagna loo gaarsiinayo marka laabadkeena hadda aan laabanay waxaa dejinay qorshe 3 geesood ah oo isla socda oo midna midka kale uusan ka harin kaasoo ah dib u xoreyntii maamul dhisidii iyo shaqo abuurkii oo stabilizationkii in xarumihii dowladda la dhiso waxbarashadii caafimaadkii shaqo abuurkii saddexdan shay sidii dowladda ay u diyaarisay ayay u shaqaynayaan maamulka gobolka iyo degmooyinka ayaan hormuudka ah runtii haddana waxaan dhihi karaa gobolka shabeellaha hoose hadday ahaan lahayd dhinaca dib u xoreynta hadday ahaan lahayd dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo xasileentaba horumar fiican aan gaar daban gobolka waxaad moodaa in meelaha ugu badan shabaabku ay ku dhumaalaysadaan ama kooxda argagixisada shabaab meesha ugu badan ay ka mid tahay waxaad sheegtay in horumaro aad ka samaysan dhanka amniga ka sokow ka waran degmooyinkii marka baraabo iyo deegaano inta badan waxaa jiray qabaa'iladooda aan isu socon jirin iyo didiilo intee la-eg ah ku tilmaami kartaa sameynada aad ka samaysay walaal horta degmada marka haddaan ku hormaro waa caasimadii gobolka shabeellaha hoose waa magaaladii ganacsiga koonfur galbeed waa magaalo istaraatiiji ah oo markaad adiga joogtid degmooyinka qaarna ay aadka ugu dhow yihiin kuwa kalena ay kilomitir gaaban ay ku jiraan waxay ku taallaa bartanka gobolka shabeellaha hoose ay ku taallaa waxay u jirtaa caasimadda marka loo fiiriyo muqdisho ilaa iyo laba dhinac ayaa laga soo geli karaa dhinaca xeebta iyo wadada kale ee tooska 90 kilomitir haddii baraha laga fiiriyo 90 kale u jirta marka waa caasimad ahaan ka soo koob waa bartanka gobolka shabeellaha hoose waxay soo martay marxalado kala duwan runtii ay shabaabna qayb ka ahaayeen halkaas waxaa isku haystay beelo oo runtii walaalo ah oo si macno daro ah dadkoodii ay u laynayeen cid ka faa'iideyna aanan jirin waqtigii hore aan gudoomiyaha gobolka ahaa juhdi badan waxaan gelinay in dadka aan fahansiino baabi'inta ay gudahooda isbaabi'inayaan dad kale unbay ugu faa'iideynayaan mooyaane ayagoo dhexdooda inaysan wax faa'iidaa gaarin barnaamijkaas dowladda federaalka iyo koonfur galbeed ayagoo iska kaashanaya waxaa la qabtay dib u heshiisiino fara badan ayaa loo sameeyey dadkaas annaga maamulkan hadda markuu yimid oo madaxweyne cabdicasiis uu yimid waxaan ku guuleysanay inaan dhisno maamul matali kara bulshada oo idin oo kana soo jeeda dhammaan qabaa'ilada meesha degan kuwaasoo laga rabo inay bulshada isku ilaaliyaan maxaa yeelay ayaga ayaa dowladda ku matala degmada maamul midaysan ayaa bulsho hogaamin kara haddii maamulku uu kala qaybsamo bulshada islama shaqayn karto sidaas ka wareysid colaada marka asalkeedaba waxay kasoo bilaabatay dagaal maamul ay kasoo bilaabatay oo dhinaca wada shaqayn la-aan maamulka gudoomiyihii ku-xigeenadiisii oo ay qaybna ka noqdeen maleeshia beeleedii taasaa marka waxay runtii ay horseeday marka oo dhan inay burburto laakiin waqtiga hadda la jooga waxaan haysanaa maamul bulshadaas oo dhan matali kara cid walba oo cabasho qabtana cid si dhab ah inay intay ula fariisato ku qancin karta waxay wadaan inay yihiin wax dowladeed aysan ahayn wax qabiil annaga ka maamul gobol ahaana way naga go-an tahay inaan ilaalino nabadda iyo horumarka marka cid walba wax u dhimaysan in waxaan rabnaa haddii alla idmo kii fadhi lagu qancin karan inaan fadhi ku qancino kii siyaabo kale in loo maro u baahan in la qancino inaan qancino way naga go-an tahay si ayn colaadii meesha ka jirtay aysan dib u soo laaban gobolka hadda dhinaca colaadaha ma jirto colaad gobolka shabeellaha hoose way ka socotaa la dhahayo oo beelo u dhexeeya ma jiro kooxaha nabadiidkan al-shabaab ayaa waxay ka shaqaynayaan
colaad beeleed inay abuuraan si ay ugu noqoto ayaga meel ay ku badbaadaan. waa midda aan hadda ka taxadirayno inaysan gobolka ka dhicin. shacabka gobolkana way ku baraarugsan yihiin arrinkaas, ka dowlad ahaan annagana waa ku baraarugsannahay. waxaan rabnaa maamulada degmooyinka iyo heer gobol iyo heer xukuumad ahaanba state level ahaan inaan qabanno barnaamijyo wacyigelin ah kuwaasoo aan dadka aan ku barayno inay colaad ku wada noolaadaan inay ka fiican tahay nabad inay ku wada noolaadaan. gobolka aada mas-uulka ka tahay dhammaan degmooyinkiisa ma adigaa ka taliya? sida saxda ah gudoomiyaha gobolka wuxuu madaxweynaha wakiil uga yahay gobolkaas oo dhan, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca kale ee mashaariicda horumarineed iyo dhinaca nabadda. gudoomiyaha gobolka si toos ah waxaa u magacaaba madaxweynaha. sidaas lamid ah haddana wuxuu matalaa uu la shaqeeyaa dhammaan wasaaradaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. si gaar ah wuxuu u hoos tagaa oo talooyin oo dhinaca maamulka uga qaataa wasaaradda arrimaha gudaha. gobolka shabeellaha hoose maamuladiisa heer degmo iyo heer gobol wada shaqeyn fiicana ka dhexeysa. waxaan ka shaqeynaa danta dadka, dad is haysta haddaa aragtid dan qaas ay isku haystaan. sidaas darteed annaga dan qaasba kama shaqeyno, sabab aan isu qabsanaba meesha ma taal. waxaan ka shaqeynaa danta guud, waxaan ku shaqeynaa awaamiir dowladeed oo tala wadaag ah. waxaan la tashanaa wasaaradda arrimaha gudaha ayadana ayadoo la tashanaysa madaxweynaha. hadba waxaan sameynaa go-aanada iyo talooyinka shaqe annaga aan qabanayno ee heer degmo iyo heer gobolba waa mid inclusive ah, qof walba contribution ku leeyahay. wax gaar ah oo gudoomiyaha gobolka keligiis go-aan uu qaadanayo oon dowladda inteeda kale la ogeyna ma jirto. sidaas darteed marka gobolka waqtigan hadda la jooga waxaan ku maamulnaa gudoomiyaasha degmooyinka oo maamul ahaan wakiil nooga ah, maamulka gobolka wakiil uga ah shaqadii dowliga ahayd oo heer degmo ah, iyo maamulka gobolka oo shaqadiisu ay tahay coordination iyo toosin iyo tala bixin sidii maamulkaas degmadu u qaban lahaa shaqadii rasmiga oo dowliga. ma degmooyinka gobolka adigaa ka taliya oo ujeedadeedu ay tahay ma degmo shabaab joogaa jirta ama maamulkaagiyaa ka taliya? gobolka shabeellaha hoose waa 8 degmo. marka laga reebo 2 degmo 6da kale dowladda gacanta ku hayso. oo maamulka gobolka shabeellaha hoose maamul degmaa jooga, ku-xigeenaha jooga, ciidanka amnigaa jooga, adeegyadii dowliga oo dhana ka socda. 2da degmo kale ee Sablaale iyo Kuntuwaare shabaab ayaa gacanta ku haya. Kuntuwaare maamulkeeda si ku meel gaar ah wuxuu uga shaqeeyaa Buulmareer oo runtii ah magaalo aad u fidaysa oo runtii dowladdiina ay joogto maamulkiina si ku meel gaar uga shaqeynaa. waana degmooyinka aan rabno hadda inaan xoreyno oo haddii aan leeyno waqtiga dhow oo qorshaha noogu jirto inaan xoreyno oo gacanta dowladda aan soo gelinno haddii aan leeyno. marka laga soo gudbo dhanka amniga gobolka waa gobolka ugu badan ee dagaaladu ay ka dhacaan inta badan iyo qaraxyada. waxaa la weeraray xilligii ra-iisul wasaaraha waxaad weerar ku qaadeen tuulo dhowr iyo 30 kilomitir u jirta degmada Marka. sidoo kale Beledoogle oo xaruntii Mareykanka ee ciidanka danab ugu tababaraya iyo weerar qaraxyo ka dhacay. saraakiil danab ka tirsan iyo qaraxyo lagu dilay. maxaa idinka qorshaysan kuwaas? walaalo waxaas oo dhan markaad adiga isku dardartid uma dhigmaan dadaalada faraha badan ee dowladdu ay wado oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay wakiil ka yihiin gudoomiyaha gobolka iyo degmada shacabka gobolka shabeellaha hoose isku duuban. dadaalada ay wadaan uma dhigmaan waxyaabaha hadda shabaabka ay ku bartilmaameedsanayaan ciidanka iyo maamulka iyo shacabka. shabaab cid ugu dhaafaya ma jiro. annaga ogaalkeena al-shabaab qof walba maalintiisa unbuu usoo socdaa mooyaane cid Soomaali ah oo uu dhaafi doono haba yaraatee ma jiro. markaad fiirsato shabaabku dadka ay leynayaan intay dowladda ka dilaan inta shacabka ay ka dilaan dhacdooyinkii ka dhacay wadanka markaad fiiriso Muqdisho oo kale caasimadii qaraxyadii la geystay kii Zoobo oo kale dad boqolaal ayaa ku dhintay dhammaantoodana shacab ay ahayd.
dagaalka shabaab waa mid shacab mooyaane mid dowladeed. shabaab waxay khatar ku yihiin laba arrimood. labadaas arrimood haddii qofka bani aadamka ama cadowga uu labadaas arrimoodba u farageliyo dagaalkiisa waxaa waajib ku ah qof kasta oo muwaadin ah. shabaab waxay cadow ku yihiin laba shay. mid koowaad waa diinta islaamka ayaa waxay ka gudbinayaan sawir qaldan. midka labaadna waa dalkii Soomaaliya, waana labada shay oo anaga aan haysano. haddii jiritaankii dalka ay rabaan qool lagu soo xadgudbo, qof kasta oo Soomaali waajib wuxuu ka saaran yahay inuu ka falceliyo. haddii diintaada lagu soo xadgudban sidaas la wada. sidaas darteeda qaraxyada awoodda cadowga hadda waxay ku soo aruureen qaraxyada miinooyinka, inay dhulka xilliga habeenkii ay waxgeliyaan. qaraxaasna haddii cid uu yaqaano male, mar shacabkii ayaa ku dhinta, mar ciidankiiyaa wax ku gaaraan, mar dowladdii wax ka gaaraan. laakiin aniga waxaan kuu sheegaya, aan kuu damaanad qaadaya ka dowlad ahaan, ka maamul ahaan, wax walbo ay shabaab isku dayaan, maadaama ay bartilmaameed ku yihiin jiritaankeenii iyo diinteenii, labadaba ay cadow ku yihiin, inaysan naga hor istaagi doonin in adeega dawliga ah iyo difaacitaanka dalkan iyo diintaanba inaan sii wado. dhiiranaan ubaan kasii qaadaynaa shacab ahaan iyo maamul ahaan iyo dowlad ahaan mooyaane dib uma soo laaban doono haddii alla bartamaha barnaamijkan isla soo gaarnay marka laga reebo arrimaha siyaasadda degmooyinka lixda degmo gobolka Shabeellaha Hoose ee xilligan dowladda gacanteeda ku jira maamulka iyo ka tago maxaa ka socda? sida rasmiga ah waxaa ka socda howlgalo ballaaran. marka ugu horeysa halkaas waxaa jooga ciidankii, mar walbana waxaa lagu dadaalayaa in amniga wax lagu ziyaadiyo. meel amni ka jira ayaa runtii mashaariic iyo horumar laga fulin karo. lixda degmo hadda degmada ugu dambeysay waxay ahayd degmada Awdheegle oo nabadiidkan laga xoreeyey. sidaas la mid ah waxaa jiray deegaano kale oo degmooyinka hoos yimaada oo muhiim ah oo shabaabku ay dadku dhibaateyn jireen. sabiid iyo caanoola ka mid ah, beriira ka mid ah. dhammaan deegaanadaas hadda aan kuu sheegaya iyo degmooyinka kale waxaa ka socda howlgalo amniga lagu xaqiijinayo oo habeenii maalin waxaa ka socda iskaashi ay hormuud ka yihiin maamulka kaasoo laisku xiraayo shacabka iyo ciidamada si ay halkaas fursad ugu helin kooxaha nabadiidka. sidaas la mid ah waxaa ka socda mashaariic oo kala duwan oo ay ugu horeeyaan caafimaadkii iyo waxbarashada. meel aan isbitaal lahayn ummaddu kuma noolaan karto. sidaas si la mid ah waxaan diyaarinay mashaariic stabilizationka qaybka ah wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay hormuud ka tahay, oo meel walba oo adeeg dawli aan geeno laba shay in la raaciyo, saddex shay aan dhaho: saldhiggii booliska, xaruntii caafimaadka iyo iskuulkii xarumihii waxbarashada. saddexdan shay way isla socdaan, waxay la socdaan si dhammaystiran howlgallada ay la socdaan. intaasna hadda si guud ahaan ay u socdaan. meel walbo aan gaarnay mashaariicdaas hadda way ka socdaan. dhammaan mashaariicda waa mashaariic dowladeed Koonfur Galbeed ay fulinaysa. cid walba oo danaysa horumarka iyo xasilinta Koonfur Galbeed oo ah deegaanada ugu muhiimsan ee Soomaaliya ayaa naga caawinaya. aadayna u fara badan yihiin. dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya ka mid ah, hay-adaha caalamiga ka mid ah, laakiin mashaariicdaas oo idil mashaariic dowladeed oo ay Koonfur Galbeed fulinaysa. waxyaabaha xilligan aad ku faani karto ka gudoomiye ahaan ee deegaanadaas intaas lagu qabtay arki karto? runtii waxaa ugu horeeya wax fara badan. waxaa koow ka ah horumarka laga gaaray dhinaca bulshada degmada Marka oo madaxweyne Cabdicasiis uu tiro 2 jeer u yimid. mar asaga keligii wafdi kale uu hogaaminayay yimaadeen, markii labaadna ra'iisul wasaaraha qaranka madaxweynaha dowlad goboleedka ay halkaas yimaadeen, oo ah waa markii ugu horeysay muddo 7 sano ka badan ee mas'uuliyiin dowladeed halkaas tagaan. marka laga reebo madaxweynaha qaranka oo safar ku tagay mar, ayadoo magaalada markaas gacanta dowladda ay soo gashay. markaad fiiriso muddada yar ee marka ay gacanta ku jirto iyo shaqooyinka muhiimka ah ee maamulka degmada iyo kan gobolka ay ka qabteen, tirada intaa la eg ee dad ah oo magaaladaas 6 bilood ka hor dadba ma deganeyn, dadna ma joogin.
guryaheeda burbursanaa, iskuulaad ma lahayn, masaajidadeeda cidlay ahaayeen, suuqyadeeda cidlay ahaayeen, waxbarasho iyo isbitaal warkiisa dhaaf. waxay ahayd meel aan cidno ku nooleyn oo ayadoo dhan burbursan, wax kaa hor imaanayo dadaa lahayn haddaad magaaladaa tagto. maantana markaad fiiriso imageka guud ee marka sida loogu soo dhaweeyey madaxweyne cabdicasiis, sida loogu soo dhaweeyey ra-iisul wasaare kheyre iyo horumarada ka socda magaalada, oo waxa uu ku faani doono maamulkan koonfur galbeed oo aniga aan wakiilka uga ahay gobolka Shabeellahaas, iyo dib u xoreynta gobolka oo aan ka bilownay Sabiidi Caanoole, Bariire, Elsaliini, haddana aan Awdheeg la joogno. aan rajaynayno insha allahu tacaala deegaanada Janaale, Sablaale, Kuntuwaareyna inaan gaarsiin doono haddii alla waa waxyaabaha ugu horeeya lagu faani doono ayay ka mid yihiin. sidaasa la mid ahna olaadiga gobolka inaan meesha ka saaro, inaan u aqoonsanay qofka dembiilaha inaan qabiil loo yeelin. ummadda gobolka Shabeellahaas waxay isla qaadatay fikradda ah qofka dembiilaha ah ama isbaaristaha ah inaan qabiil loo aanaynin ee loo aqoonsado inuu yahay dembiile shakhsiyadeed. maxaa yeelay ma jiro qabiil inta shiran yiri bax isbaare ii dhigo, qabiil inta shiran yiri bax dad ii soo dil, ma jiro. taasna waxay daliil u tahay horumarka dawliga ah ee bulshada ay runtii ay gaarayso iyo fahamka dawliga ah ee bulshada ku fida. marka waa waxyaabaha kale ee labaad aan annaga aad ugu faanayno. waxaa daliil u ah degmada Walaweyn oo runtii colaad ay ka dhacday. dad badan baa danaynaya dib u heshiisiin iyo waxyaabo noocaas in lagu lifaaqo colaadaas. annaga ka dowlad ahaan waxaan isticmaalnay awooddii dawliga, dadkii dembiilayaasha ayaan soo qabanay. colaadii halkaasay ku dhamaatay. waa waxyaabahan dadka gaarsiinay ee awal horena aanan jiri jirin. odayaashu waa dhexaadka nabadgeliyada deegaanada, laakiin mararka qaar qofku oo runtii qoriga haysta ayaga kama amar qaado. waxay u baahan yihiin marka falcelin dawladeed oo nidaamsan oo sharciyeysan ay u baahan yihiin. marka Shabeellahaas intaas oo idil kaamil ay u yihiin. waayahay arrinta isbaarada aragti aan dib u laabto marka laga soo tago afgooy ilaa Walaweyn isbaarooyinka gobolkan ka jira marba marka ka dambeysa tiradooda way soo yaraanaysa. tusaale yar haddaan kuu soo qaato, isbuucii hadda lasoo dhaafay 2 nin oo isbaaro dhiganaysay meesha la yiraahdo Calamada ayaa lagu dilay meesha, oo ciidanka amniga ay ku dileen. ayagoo dadkii baabuurta meesha runtii istaajinayo oo kontarool gaara ka dhigtay oo isbaara ay ciidanka amniga intay u yimaadeen ay bartaas ku toogteen ay ka tageen. waxay daliil u tahay heerka aan ka joogno isbaara nacab. hay-adaha amniga way ku baraarugsan yihiin arrinkaas. bulshada waaba tan maalin walba ka cabanayso. annaga maamul ahaan marka waxaa naga go-an ayadoonan colaad gelinayn ciidamada ee isbaaraleyda meeshay ku arkaan ku tooganayo. kuwa hadda ugu horeeya oo hadda meesha la yiraahdo Calamada mooryaanta ku dishay aan lagu lifaaqay in kuwa isbaarada dhiganaya ee dharka ciidanka wato hal meel loogu soo jeesto. saan loo dilin sawirkii iyo magacii ciidamada xoogga dalka, saan loo dilin magacii iyo astaantii dalka ee dowladnimada ahayd, ee aan loogu hiilinin shabaab. maxaa yeelay mar walba oo qof astaantii qaranka wata aad wax ka sheegto waxay dhiirigelinaysaa shabaabka, ay dhiirigelinaysaa oo waxyaabaha propagandooyinka ay isticmaalaan. laakiin gobol ahaan waxaa naga go-an annaga isbaarooyinka inay waanu wadaynaa dadaalkaas. gobolka daban markii madaxweynihii federaalka tagay, ra-iisul wasaarihii dalka tagay, oo madaxweynihii koonfur galbeed tagay, gudoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed, madaxdii qaranka iyo beesha calanka oo dhan ay wada tageen. adiguna gudoomiye ka tahay runtii farxaday noo tahay, dhiirigelinay noo tahay. waxay na tusaysaa inaan hayno shaqo fiican. maxaa yeelay meel mas-uuliyiin qaran ay soo booqanayaan haddaad arko oo la danaynayo, 2 fariinay diraysaa. meesha horta marka ugu horeysa inay tahay meel fiican oo maamul fiican uu ku jiro,
nidaam dawli fiican uu ku jiro amni laisku haleyn karaan uu ku jiro gobolka shabeellaha hoose oo mas-uuliyiin heer qaran iyo heer state iyo international community ay soo booqanayaan waxay fariin iyo daliil u tahay maamulka meesha ka jiro inuu shaqo fiican hayo annaga gobolka marka waxay noo tahay dhiirigelinay noo tahay waxayna nagu sii dhiirigelinaysaa dadaalka aan wadno inaan sii laba jibaarno si ay noogu bataan booqashooyinka heer qaran iyo heer state gabagabadii barnaamijka gobolka waxaa lagu tilmaamay in gobolka ka sugan dalagyada loo iibgeeyo suuqyada caalamka iyo magaalada muqdisho Soomaaliya dalagyadii weli ma socdaan mise gaabisaa jiro meel shabaab joogo oon horta gaabis ka jiran shabaab waxay baabi'iyeen ma aha xorriyaddii inay dadka ka qaadeen diintii inay dadka ka qaldeen ma aha intaa keliya dalkii inay amni u diideen keliya waxay kaloo diideen wax soo saarkii runtii gobolkaas uu caan ku ahaa oo dhan beerihii inay dadka tacbadaan waa diideen marka laga reebo aseendooyin qaar oo ka badbaaday marka laga reebo kii tacbanayeen waxay ku soo rogeen lacag baad ah oo xad dhaaf ah uusan qofka ku kalifaysa inuu iska daayo waxaan tacabkooda maxaa yeelay rafaadku uu gelinayo iyo juhdiga iyo dadaalka natiijadii uu markii wixii ay u soo go-aan isbaaro shabaaba meesha taal boqolkiiba 50 ayagaa qaadanaya boqolkiiba 50 investmentigii xoogiisaba kama bad marka qofkii wax usoo harayaba ma laha laakiin hadda markaan gobolkan howlgaladan ay ka bilowdeen annaga waxaan geynay annagoo kaashanayna wasaaradda beeraha koonfur galbeed in dadka loo qaybiyo abuur runtii deegaanadoodii lagu haayo si ay tacabkii beeraha ay dib ugu laabtaan kanaaladii ay shabaabku duugeen biyaha qaadaya beeraha ay ku waraabsan jireen iyo geedka la yiraahdo geed rambo oo runtii dhulbeereedyadii si zaa'id ah runtii uga baxay oo shabaabkiina ay diideen in laga guro beerihii ilaan geedkaas waa geed astaan u ah nabad guurka hal geed haddii la gooyo waxay diideen waxay dhaheen waa idinkoo hal qof oo shabaab oo dilay ka dhiganta taasaa marka dadkii waxay ka hor istaagtay tacabkii inay aadaan maxaa yeelay beerihii waxaa ku yaal geedaa ku yaal meel geel ku yaalan beer ma noqoto laakiin hadda waxaa jiro ololo fiican oo hab dowladeed aan u wadno ilaa iyo wasaaraddii iyo gobolkii degmadayba iyo odayaashii ay qayb ka yihiin insha allahu tacaala sanadkan hadda dhalan doono 2020 waxaan rajaynaynaa muuqaalka guud ee shabeellaha hoose oo idil inay isbedeli doonto astaamihii lagu yaqaanayna la arki doono haddii alle safiirka dowladda qatar iyo ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynaha koonfur galbeed iyo adiga guddoomiyaha gobolka waxaa jirtay mashruuc aad dhigtay oo dhismaha wadada dhismahaas ma lagu guuleystay dhismaha wadada afgooy ayuu ahaa mashruucaas annaga sidaad ka warhaysid xuduudeena gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose waa siinka dheer meesha la yiraahdo baar shabeel weli waxay mashruucaas la dhagax dhigay wuxuu ku jiraa xeyndaabka gobolka shabeellaha hoose gobolka banaadir ayuu weli ku jiraa ma soo gaarin gobolka shabeellaha hoose laakiin mashruuc mar hore la bilaabay oo hadda meel fiican marayo aan u malaynayo 2-3 kilomitir kadib wuxuu soo gaari doonaa qaybtii koonfur galbeed ayuu soo gaari doonaa annaga diyaar waxaan u nahay kaalinteena inaan ka qaadano oo aan kala shaqeyno mashruuca sida loogu talgalay inuu uga fulo haddii alle adiga iyo ciidanka danab iyo kuwa amisom oo iskaashanaya dhawaan waxaa sheegtay in waddo kale aad dhisi doonto bariira ama deegaanadii dhawaan laga saarasho aad iyo aad waxaa jiro 3 mashruuc oo hadda aan ka shaqeynayno oo lagu horumarinayo gobolka si guud ahaana waxaan hadda soo gebagabeynay 10 kilomitir waddo ah muddo 30 sano runtii ay dadka ku dhibtoodeen inay maraan oo ay burburtay weliba xilli roobaadka hawa uga sii darnaada xitaa aan gaari dameerka mari karin baabuur iska dhaafay oo waddada ka baxda afgooye tagta sabiid iyo caano waddadaas waa waddo 10 kilomitir ah dhismaheed hadda la soo dhameeyey waa la soo gebagabeeyey insha allahu tacaala mar dhow ayaan xariga ka jari doonaa sidaas la mid ah magaalada marka maadaama colaad fara badan ay ka jirtay iyo shalambood inta u dhaxaysa waa 12 kilomitir wadda ayadana waxaan sameynaynaa
waxaan ka fulinaynaa mashruuc shaqo abuur ah oo dhalinyaro ilaa iyo 200 oo qof ah ay ka faa'iideysanayaan oo loogu talagalay wadada in lagu baneeyo oo cabirkii wadada rasmiga ah marka ugu horeysa la geed qaado oo la soo saaro kadibna wada rasmi ah oo jaaya in laga dhigo oo dib loo dhiso sidaas la mid ah waxaa ku jira mashruuc Baraawe iyo Walaweyn loogu talagalay asagana dhinaca wadooyinka marka hadda waxaan ku guuleysanay kii Sabiidi Caanoole kii marka ee geed qaadkii ayaa socda labada kalena insha Allah taala mar dhow ayaan gaari doonaa maadaama waqtiga uu nagu socdo waxaa jirtay arrin baraha bulshada tubsatay nabad iyo najax loogu magacaabay oo laga soo bilaabo Walaweyn ololada nabadda tuumada ma gaarsiin doonta dhammaan degmooyinka gobolka runtii halku dhigaasu kulaabashadeeda gobolka halku dhigaan aniga iyo team saaxiibadeeda oo maamulka gobolka kamid ah aan isla garanay ayuu markaad fiiriso najax waa aniga naanaysteeda laakiin markii dhinaca kale laga fiiriyo waa horumar waxaan u qaadanay maadaama laba kalmadood oo isqabanayo isku fiican ay yihiin inaan halku dhig uga dhigno ka gobol ahaan horumarka iyo gobolka aan ka fulinayno oo maamulka uu hormuudka yahay badanaan waxaa lagu soo lifaaqaa shaqooyinka anaga aan qabano bas laguma daro shaqooyinka kale halku dhigaas marka halku dhig hadda caan ka noqday gobolka Shabeellaha Hoose oo degmooyinkiisa oo dhan meel aan la gaarsiinin haba yaraatee ma jirto ololihii nadaafadda laga soo bilaabo Walaweyn ilaa iyo degmooyinkii kale aan tagnay aad ayaa looga bartay muhiimadda iyo wax laga leeyahay hadafkan waxay tahay nabad iyo horumar nabad way ugu dambeyntii fariintaada ugu dambeysay oo aad la wadaagaysaa bulshada ku daawanaysa fariinteyda marka ugu horeysa waxay tahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo runtii fursad noo siiyay inaan u shaqeyno oo aan u adeegno shacabka gobolka Shabeellaha Hoose anoo ka wakiilaha maamulada gudoomiye ku-xigeenada gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo odayaasha inta waxaan uga mahad celinaynaa fursadan uu siiyay iyo heeladu uu hiiliyay dadka gobolka Shabeellaha Hoose in Koonfur Galbeed guud ahaan Shabeellaha Hoose ay priority number 1 in la siiyo dhinaca amniga ee dhinaca horumarka intaba si dadku ay uga soo baxaan mugdiga ay ku jireen waxaan rabaa baaqiga labaad inaan u diro shacabka ku nool gobolkaas meel haddaad aragto horumar inay sameynayso waa meel nabad ku jirto sidaas darteed aan rabaa inaan u sheego in nabad ku wada noolaanshaha shacabka reer Koonfur Galbeed ay qaataan wax allaala wixii cabashooyin gudahoodana maamulka iyo ciidanka inay u soo gudbiyaan si looga taxadiro inuu shabaabka fursad helo oo mar dambe olaad aysan gobolka uga dhicin annagana waxaa naga go'an meel walbo ay joogaan inaan uga tagno haddii alla idmo waxaan u rajaynayaa shacabka gobolka ku nool guud ahaan hay'adaha amniga iyo odayaasha iyo maamulkaba guul iyo horumar aan u rajaynaya halkan kusoo gabagabaynaya barnaamijka intuu socday waxaa igala qayb qaatay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibraahim Aadan Cali Najax waxaan idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay anigu Maxamed Aadan Cabdullaahi Maxamed Socdaal tan iyo intaan barnaamijkiisa dambe aan dib u kulmayno saaxiibada barnaamijka Jubbaland TV oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo